ninkii maartay saalix ahaay oo naftiisu ka adkaatay laakiin gabar saalixada ilaahay waafajiyay oo ayadana in ka soo duruufay ku kaliftay markay isu kala dhigtay waxay tiri ittaqillaha ya hada wala tafdil khatim illa bihaqqihi war ilaahay ka baqay tiri meeshaana ha ku jabin inay tiri xaq yadan xaq lahayn ha u dhicinay tiri meeshaan maalkan maalad adigu leedahay ma ahana markaasuu ka istaagay cabsi ilaahay markaasuu istighfaarta ninkaas asaga ah ilaahay daraadiisa uga tagay soo ma aha godki marka dhagax uu ku dumay oo buur ay rag oo gambadeen gab uu ku soo dhagax ee qib ka siiyay ilaahu maalintaas hadaan adiga daraada uga tagay haweenaydaas nafteedu ay jecleed wajiga uga tagay dhagaxaasna ka qaado weey dulaac dhagaxi laba nimo kala ayaguna isbiirsadeen saddex ay ahaayeen saddex nimo qaar uu ku dumay buu ahaa nin walba wuxuu leeyahay amalkiisa laakiin munaasabadeen hadda tan naqosaysatan waay haddaba waxa waaye nin kale tan gabar inta soo daadiyay habeen ido cadaano ay jirto ayuu markuu islaahay marka ba miskiinta diyaar waaye ay xogo yar tamannuc waxa la yiraahdaa tamannuc waa diiday bas ka fiilay waxa jiro yiri yaa noo jeeda maxaad u cabsanaysaa wallahi la yaraana illa hada al-kawkab yiri miskiinka fiiri waxa noo jeedo in xidigaas ma jirto yiri waa bishi waaye halka taag 14 waaye markaasay tiri wa ayna rabbul kawkab ya hada rabbiga kawkabka asagu nuuriyana aaway xaquu joogaa bay tiri ama ogtahay يروب وانت يريا وحنا يكدو دينا حراره الشيطان كشيدايا با كترت اسوي ورنتا والله اسو اسك سيدايا ايمان الى ان ددكاس لكن دعدك لو سدحادان idin sheegayna oo aad dhalinyarada hadda idinka intiina masaajidka soo galashay qofada zina galaysa ma wajirta alxamdulillah laakiin kuwa galabtii meelaha taag taagan oo la sheegayo gabdhaha meelaha fatig leesha la gaadayo gaarsiya waxaa jiray nin sacuudiyaan ah ka sheekeeyay qiso ku dhacday wuxuu yiri meeshaas dalku nolol adag ay haystaan aad u fiican barwaaqa la isaga jiraan nicmo isaga jiraan marka inta badan illa inta ahlu iimaanka ma ahayna waa la qaraabtaga markii la gaaro fasaxyada marka qaraabkii wuxuu gaarsiiyay Beirut inuu tagay miskiin ka sheekeenayo ilaahay baa soo hanuuniyay markii dambe dhalinyaro waa shacba wuxuu yiri mid ayaan sidan u wadaalinayo wadaalin soo tarqaan dadka xalaha yaqaan si uu war loogu jiray dadka Soomaalidu shukaansi ka cabiraan iyo sheeko iyo baashaal sidii loo baashaalay hawshu markii meesha ugu dambaysa gaartay oo marka in hawshii la isku qaaciyo kaliya ay dhiman tahay ilaahay fidradiisa iyo tawxiidka iyo diinta la baraaya ku soo nuuxsaday wuxuu yiri hal mara waxa la iga siibay buu yiri xaraaradii uu shidmaysay ilaahay baa badbaadi raba markaasay gabadhina ugu keenaysaa uu yiri khalaas dumarkuna haday xariga soo gooyaan kadib waa dhib badan yihiin xarigii soo jarta marka hore laga fiirsadaa laakiin xariga soo jarta kabacdi waa halis mar alla markay ugu keentay tiri maxaa jira markaas waxaan yiri wax aan sheegan garan waayo yiri markaas waan yiri walaalay aniga ma aragtay waxaan isku fakaan isla yiri waxaan soo xasuustay buu yiri jirro ayaan qabaa marka jirradii baa ii diidaysa inaan nafteeda ku maalko maxaa jira maxay tahay aydis aan qabaa oo yiri marka aydis cudur aydis leeraan qaba wuxuu isleeyahay isaga asay qosol ku dhifatay yiri inta ugu dambaysa asay tiri 15 sano qabaan waan iska waday tirawshan waaga igu bariyo markaas aan ogaado yiri inaan meel cidla markaas aan naxdin igu koobeedo yiri fiir khatarta ilaahay ka soo qabta fiir waxa waaye marka baalkan dalacada lagu sii daynayo xisaab badan ka dambaysa haduu ilaahay ka baqay meel ka soo joogo god kasta ilaahay ku badbaadinaya haduu rabo ha joogo talaabiib ha joogo haduu rabo haduu si alla ka baqayna wallahi gurigiisa ugu soo galaysa imaam shaafici wa tawri rahmatullahi alayhi al-zina daynun in aqradtahu kana al-wafa'u fi ahli baytika fa'allami zinadu wuxuu waa dayn hadaad ama hayso dadka gurigaaga laga gudahay ogaabo meel dheer aadi maysid gurigaaga aad arkaysaa idoo dhinac looga jiro adigana oo laga shaqaysanayo